بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على من لا نبي بعد وصلاة الله وسلامه عليه. dhulbahantow waad ogeydeenoo in badan baan ka alaladay war arrintan aad sahlanaysaan isaaq waxa uu idinla damacsan yahay arrintu sida ay tahay haddaad ka warqabtaan qosol iyo dhaqasho iyo dhisme iyo nolol xaraga leh kumaydaan daasheen dulligan aad iska qaadi lahaydeen maanta waa taasoo waa idiin caddaatay inta laydin dilay oo layna dilay oo layna dilay oo maalinba mid horteenna lagu qashay yaa markii dhallinyaradii iyo carruurihii iyo dumarkii ay ka kaceen la yidhi waa la idinka daraya horta midabkii dhabta ahaa ee isaaq hadday maamul sheeganayeen iyo hadday wax isugu kinqarinayeen wakaa waa gumaad iyo barakicin inna in la dilo inna inay barakacdo oo waddanka ka baxdo shuhadada laascaanood dhowrkii maalmood ee u dambeysay lagu dilay adliisti iyaga oo dulmi diidan oo ka diriraya dirirkoodu habal noqdo in ay dhawaaq iyo hadal iyo dhagax tuur awoodi ka noqotee yaa naftu ka baxday si xaragaleba u dhinteen maanta if iyo aakhiraba waa inugu dhaamaan inteena nool maxaa yeelay aakhirana waa shuhado oo la maydhi maayo lagu tukan maayo oo jannay toos u galayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay fadligii iyo karaamadii taariikhna inaga wacan oo taalaynu magacyadooda iyo muuqaalkooda ku xardhi doonaa oo ilaahay hadduu kuu roon yahay boqolaalka sane ee soo socda waa la xusuusan doonaa waxay noqon doonaan halyeeyo la mid ah ismaaciil mire iyo raggiisii arrintan waxaynu u baahannahay inta gudaha joogta maanta maalinba magaalaasaa isaaq isugu hareerayn doonaa maalinba magaalay ku xasuuqi doonaan haddaynu maalinba magaalo ku eeganno dee waynu dhammaanaynaa waxaan leeyahay dhammaan magaalooyinka kale ee carra dhulbahante waa in laga gurmadaa waa in sidii loo sabata bixin lahaa dadka laascaanood ku nool jooga ee la xasuuqayo ee la hareereeyey sidaynu ama gudaha u gallayaa ama dusha ka dilayaa cadowga ku hareeraysanba in aynu u gurmano maxaa yeelay haddaynaan taa samayn maalinba magaalaa la cuni doonaa oo la baabi'in doonaa dadkeeda kadibna isaaq la deji doonaa jaaliyadaha waxaan leeyahay guddiyadii qabta dhaqaalaha hay-adaha iyo dowladaha siiya maamulkan isaaq warka gaadhsiiya diyaargarooba howl cusub baa bilaamaysa dhulbahantow waxaynu kaga bixi karaa arrinkan midnimo waxaan horena idinku sheegay haddeerna imaan doonta in isaaq isku dayi doono inay idinkala qaybiyaan reer u waxeeyaan arrintaa iyo shirqoolka aynu ka digtoonaano horgalaha la socda isaaq ee dulnimada qaatay reer maaha dhalashadana waynu ka saari doonaa intuu maanta cadow inoo soo raaco inuu berrina dhulbahanto noqdo ma dhici doonto haddaynu hore u oggolaanay oo yidhaahdo waa lay khalday ama carruur baan ka biilanayay inta iska cashishay ee ka tagtay gudnimada waa soo dhowaynaynaa inta ku harta ilaahay hadduu kuu roon yahay soo raacda cadowga inugu soo duulay dhalashada waynu ka saari doonaa dhulkeennana kuma noolaan doonaan nin walba maalin wuxuu qabanayay iyo magaciisana waynu qori doonaa reer yuusan noqon waa cadowgeen cid kastuu ka dhashayna cadowgu u yahay reer sheekh isxaaq waxaan leeyahay isaaqow isu dhuuman mayno waxaana dilayay 15 sane u dambeysay ee dalka yaga ku soo duulay waa wiilashiinii ama maamulku ugu magac yeela ama ugu yeela waa taladiinii iyo tamartiinii qof kastoo naga dhintay waxa naga dilay waa isaaq cidda haddeer dadka ku xasuuqaysa magaalada waa isaaq
ilaahay hadduu kuu roon yahay cidda aanu ka aarsan doono waa isaaq. ilaahay hadduu kuu roon yahay waa ognahay mirar yaryar oo kooban oo ka xun waxa waa la soconnaa waana naqaanaa. hase yeeshee beelweyntii isaaq inay xasuuqa iyo xaqdarrada nalagu hayo inay isku raacsan yihiin culimo iyo caamo waanu ka warqabnaa. isu dhuuman mayno. berri yaynaan kala cabanin. dowladda federaalka ah Soomaaliya madaxweyne dadkan lagu laynayo laascaanood ee la xasuuqayo waa dadkan madaxweynaha u ahayd. nasiib darro calankii adiga lagu dhaariyay inaad qarannimadiisa ilaaliso yay kor u hayaan oo lagu wada tooganaya iyagoo kor u haya. gobollada kale ee Soomaaliyeedba gurmad iyo ciidan iyo calaf leba waad u dirtaa. midhaa madaxweyne waa lagu xamanayay baryahani soomaalinimadii meel ka hoosaysa yaad istiribaad madaxweyne u tahay. hadduubase madaxweynuhu taa go'aansaday oo yidhi anigu soomaaliyoo dhan madaxweyne uma ihiye reer ka mida Soomaali baan u ahay, soomaalidii kale ee qaranka madaxda u ahayd maxay u aamusan tahay? ma loo harbaa maxay u aamusan yihiin? ilaahay hadduu kuu roon yahay international community-ga waxaan u sheegaynaa dhaqaalahan maamulka isaaq uu nagu laynayo waa dhaqaalahaad idinku bixisaan, waa ciidamada aad tababartaan, weliba RRU-du oo dadkan haddeer madaxa ka tooganaysa ingiriiskaa tababara. ingiriisow ma waxaad leedahay kuwii kabaha ii qaadayay markaan idin gumaysanayay yaan taageerayaayo idinku waa ila dagaalanteen oo saasaad dhaqaalaha isaaq u siinaysaa annagana aada nagu dilaysaa. hadday sidaa tahay waxaynu go'aansanaynaa colaad. hay-ad kasta iyo dowlad kasta oo dhaqaala siisa isaaq waxbay naga dishay, colaad bay noo muujisay. wakti ay ahaatana waanu ka aargoosan doonaa. wakti kasta ay ahaatana 100 sano ha ka soo wareegto 1000 sano ha ka soo wareegtee hay-ad kastana waxaanu siin doonaa digniin, waana u diri doonaa, waana u geyn doonaa dhaqaalaha ay bixiyaan iyo wixii lagu sameeyey. dhulbahantow maanta waxaa la yidhi geelu maalin buu isku calool yahay. maanta waxaan u malaynayaa dhibaatadii in aynu aragnay baaxadda ay leedahay. hawl baad annaga nagu sugayseen. hawshii sida ugu dhaqsaha badan baanu u soo gabagabayn doonaa. intaa ka horeysana war baad naga heli doontaan. maanta ninka reerkeenna hagrada ilaahay hagrado. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.